بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. nolosha casriga ah waxay leedahay caqabado iyo fursado badan oo ay lagama maarmaan tahay qofka inuu la jaanqaado oo isbeddel ku sameeyo nolol maalmeedkiisa. sidaa darteed caadooyinka wanaagsan ee maalinlaha ah ayaa kaalin muhiim ah ka ciyaara sidii loo horumarin lahaa caafimaadka, farxadda iyo guusha nolosha shakhsiga oo dhan. haddii aad rabto inaad noloshaada beddesho, waxaa lagama maarmaan ah inaad qaadato caadooyin wanaagsan oo kugu dhiirigelinaya inaad gaarto ahdaaftaada. caadooyinka wanaagsan waxay kaa caawin karaan inaad ku noolaato nolol dhammaystiran oo macno leh, waxayna ku siinayaan hab nololeed nidaamsan iyo maskax furan. haddaba muuqaalkan aad ayuu muhiim kugu yahay inaad si degan u daawato. muuqaalkan waxaan kula wadaagi doonaa 10 caado oo lagama maarmaan ah, kuwaasoo haddii aad si joogta ah u samayso ay si weyn u bedeli karaan noloshaada, korna u qaadi karaan tayada noloshaada. intaan mawduucina bilaabin, ku soo dhawow daawada kanaalka caawiye. haddii aad xiisaynaysid mawaadiicdan oo kale, kanaalka subscribe saar, fideoga like saar, sina share garay si muuqaalkan uu gaaro dad badan. kicidda saacad hore. markaad waqti hore aad soo kacdo, waxaad helaysaa fursad ah inaad salaada subax jamaca ku tukato, adkaar sabax aad akhrisato, ugu yaraan 2 safxo ama xisib qur'aan ah aad akhrisato. sidoo kale soo kicidda saacad hore waxay ku siinaysaa waqti dheeraad ah oo aad ku qorsheyn karto maalintaada, ku samayn karto jimicsi iyo inaad waqti la qaadan karto nafsadaada. 2. jimicsi joogto ah. samey jimicsi joogto ah xitaa haddii ay tahay socod gaaban. jimicsigu wuxuu kor u qaadaa caafimaadka jidhka iyo maskaxda. 3. akhri buugaag. akhriska buugaagta waxay kordhisaa aqoontaada, waxayna kaa caawisaa inaad noqoto qof maskax furan. 4. qorshaynta maalinta. qor liiska shaqooyinkaaga maalin kasta. qorshaynta waxay kaa caawinaysaa inaad ahaato mid nidaamsan oo diiradda saaraya ahdaaftiisa. 5. hurdo kugu filan. hubi inaad seexato saacado kugu filan iyo hurdo tayo leh. hurdada fiican waxay muhiim u tahay caafimaadkaaga guud ahaan iyo firfircoonidaada. 6. cun cunto caafimaad leh oo dheellitiran. cuntada wanaagsan waxay siisaa jirkaaga tamarta uu u baahan yahay si uu shaqo hufan u qabto. 7. fikir toosan ama fikir saxan. ku dadaal inaad ku noolaato fikir saxan. fikirka saxan wuxuu kordhiyaa farxadda iyo qanacsanaanta nolosha. 8. isdaryeel. isdaryeelku wuxuu kaa caawinayaa inaad ka fogaato daalka, walwalka iyo walbahaarka. 9. isku xirnaanta dadka kale. la xiriir dadka kale sida asxaabtaada, qoyskaaga. isku xirnaanta bulshada waxay kor u qaadaysaa niyaddaada iyo caafimaadka maskaxdaada. 10. barashada waxyaabo cusub. isku day inaad barato xirfado cusub iyo aqoon cusub. barashada waxyaabaha cusub waxay kor u qaadaa maskaxdaada, waxayna kaa caawisaa inaad ahaato qof firfircoon oo horumarsan. gabagabadii mawduucayna, inaad qaadato ama aad samayso caadooyin wanaagsan waa tallaabo muhiim ah oo ku aadan horumarinta noloshaada iyo gaarista ahdaaftaada. caadooyinkan waxay kaa caawin karaan inaad noqoto qof nidaamsan, tamar leh oo maskax furan, waxayna kugu dhiirigelinayaan inaad si joogta ah ugu dadaasho horumarinta naftaada. isbeddelada yaryar ee maalinlaha ah ayaa ku horseedi kara isbeddelo waaweyn ee noloshaada oo dhan saamaysa. haddii aad si joogta ah u qaadato caadooyinkan, waxaad heli doontaa nolol wanaagsan, farxad leh, waxaadna noqon doontaa shakhsi guulaysta. noloshaadu waxay noqon doontaa mid buuxda oo aad ku raaxaysato safarka aad ku jirto. ku dadaal inaad si joogta ah u horumariso caadooyinkan si aad u gaarto nolosha aad jeceshahay.